aabaha siyaasadda casriga ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qoray taariikh aysan weligooda qorin madaxdii soo martay Soomaaliya isaga ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyay mana qori doonaan kuwa badan oo soo socda waa halyay aftahan ah fikirkiisa aan la gaban waxa uu sameeyay hadalhayntii ugu ballaarneed ee caalamka waxaana loo aqoonsaday geesihii la gala xilli adagna garab istaaga dadkiisa iyo dalkiisa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku suntan yahay aabaha siyaasadda casriga ee Soomaaliya madaxweyne wadaniya dadkeenu wax badan sugaayay ayaa helay ku tagnay ducaysane waan ku tagnay mudane xasan waan ku tagnay dal xoreeye waan ku tagnay haddaba ma isku raacsannahay daawada in Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay aabaha siyaasadda casriga ee Soomaaliya maadaama guulo waaweyn uu ka soo hooyay fagaarayaasha diblomaasiyadda caalamka la dagaalanka argagixisada qaabaynta haykalka dowladnimo nidaamaynta sharciga iyo weliba amniga mudane Xasan Sheekh Maxamuud guulayso taariikhda ayaa ku xusi doonta waxaana tahay haliyay facweyn waxaana ku leenahay hogaami 20 sano ee soo socda adigoo weliba qodaya soona saaraya shidaalka dhaymanka dahabka batroolkii diyaaradda oo dunida baahi weyn ay u qabto waa la jin socdaa oo idin leh Soomaaliya waxa uu bariyay kuwa cusub waxaana u sameeyay aaba Xasan Sheekh Maxamuud bye bye أركض جوحة نبح قبل الحرية النبي على سؤالنا